xooggeena iyo xoolaheena iyo xiskeena aan suu geyno la dagaalanka khawaarijta al-shabaab. ciidamada hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa maalmihii la soo dhaafay sare u qaaday howlgallada lagu baacsanayo haraadiga argagixisada ee ku dhuumaalaysanaya xuduudaha gobollada Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, halkaa oo uu safarro shaqo ku joogay taliyaha NISA toddobaadyadii la soo dhaafay. ciidamada kala duwan ee dawladda iyo kuwa macawiisleyda ee qaybta ka ah howlgalka NISA ay ku doonayso nadiifinta deegaanada ku teedsan webiga Shabeelle iyo degmooyinka isku xidha saddexda gobol oo ay argagixisadu marin dhuumaalaysiga ka dhigteen, ayaa waxaa qorshaha howlgalku yahay in deegaanadaas laga ciribtiro argagixisada ka hor bisha barakaysan ee Ramadaan. taliyaha NISA mudane Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulooshe oo wixii ka dambeeyey Abriil 4, 2024 dib u qaabeyn ku sameeyey tabaha howlgelinta halyeeyada NISA ayaa hoggaamiyey howlgallo barakaysnaa oo dhegta dhiigga loogu daray argagixisada kana kala dhacay duleedyada degmooyinka Beledweyne, Matabaan, Maxaas, Buulaburte iyo deegaanada Aboorey, Yaaqle, Shanlow iyo kuwo kaloo dhowr ah kadib markii uu ku soo guulaystay xasilinta amniga magaalada Beledweyne lana wareegay xerada Lamagalaay iyo amniga guud ee magaaladaas oo xarun u ah howlgalka uu ku dhawaaqay taliyaha. kadib booqashooyinkii taliyaha hay'adda NISA mudane Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulooshe ee deegaanada Hirshabeelle ayaa waxa uu xoogga saaray sidii loo heli lahaa wada shaqayn buuxda oo dhex marta ciidamada dawladda sida milatariga, kuwa deegaanka iyo shacabka oo lafdhabar u ah howlgalka la dagaalanka khawaarijta al-shabaab. isku dubaridka taliyaha iyo kulamadii uu la qaatay odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta iyo waxgaradka deegaanada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxaa meesha ka baxay ka faa'iidaysiga argagixisada ee hurinta dagaalbeeleedyada iyo isku dirka dadka deegaanadaasi wada degan, waxaana si rasmiya dib u bilowday halgankii macawiisleyda ee hakadka ku jiray muddo kooban. howlgalka oo lagu baacsanayo maleeshiyada ay argagixisada ka dhigteen xaabada lagu shito dabka ayaa waxaa lagu khaarijiyey dhagarqabayaal la marin habaabiyey iyo horjoogayaal dadka ku qancin jiray inay gubaan naftooda ama laayaan shacabka. halyeeyada NISA oo adeegsanayo xogo sirdoon ayaa inta ay ku howlanaayeen ciribtirka khawaarijta al-shabaab u daatay goobo ku teedsan webiga Shabeelle oo ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaadka kuwa oo la liqsiiyey dhimbilo rasaasa. ciidamada NISA oo garabsanaya kuwa deegaanka ayaa inta uu socday ciribtirka khawaarijta al-shabaab gacanta ku dhigay deegaano iyo tuulooyin ku jiray gacanta maliibaanayaasha sida deegaanka Beerayabaale ee gobolka Hiiraan, halka nolosha lagu qabtay naftooda halligayaal laga hortagay dhagarahooda. howlgalka socda ayaa waxaa mar qura lagu soo afjaray in ka badan 26 xubnood oo ka tirsan khawaarijta al-shabaab, kuwaas oo isugu jiray horjoogayaal iyo maleeshiyaad kadib howlgallo laga fuliyey deegaanka Yaaqle ee gobolka Shabeellada Dhexe xilli ay ku howlanaayeen qaadista weerarro ku wajahnaa difaacyada ay ku sugan yihiin halyeeyada. maleeshiyaadka qaar ee gacanta u galay NISA ayaa sheegay in lagu indhasarcaadiyey tashkiilin dhicisowday bandhigyo la dul saaray gabayo carbeed oo laga soo minguuriyey argagixisada caalamiga. sidoo kale inta uu taliyaha NISA ku howlanaa dardargelinta howlgallada iyo dhiiragelinta ciidamada macawiisleyda iyo odayaasha deegaanka, waxa uu ku guulaystay burburinta in ka badan ilaa 16 isbaaro oo dhammaantooda ah kuwa sharci darra ah oo khalkhalgelinayay nabadgelyada dadka iyo gaadiidka, sidoo kalena sumcad xumaynaya howlgalka halyeeyada macawiisley ee qaybta ka ah dib u xoraynta inta badan gobolka Hiiraan. taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo furimaha ay howlgallada dib u xoraynta ka socdaan kula hadlay soo majeystayaasha NISA iyo ciidamada deegaanka ee macawiisleyda ee u taagan badbaadada shacabka ayaa ku ammaanay sida ay raaxada ugu diideen argagixisada, sidoo kalena bogaadiyey dhabar adayga iyo go'aanka ay ku doorbideen inay la noolaadaan cadceedda duruufaha dagaalka bilaa xuduudka iyo dabaylaha. NISA oo u taagan ciribtirka argagixisada sidoo kalena xoojinaysa dagaalka sannado jirsaday ee macawiisleyda ayaa ballaarin doonta difaacyada ay ka howlgalaan halyeeyada si loo wiiqo burcaddiimeedka dhalanroga ee carruurta cadaystayna xasuuqa shacabka Soomaaliyeed. halyeeyada oo markii hore argagixisada kula dagaalami jiray gudaha magaalooyinka ayaa imika cadowga ku baacsanaya dhulka fog iyo xuduudaha dalka. geesiyada qaranka oo ay ugu horeeyaan kuwa NISA kama waaban doona tab waliba oo lagu dhabarjabinayo cadowga ku sugan miyi iyo magaalo intuba.